haddaynu dub eegno wararka magaalada muqdishona wasaaradda qorsheynta ee xukuumadda federaalka Soomaaliya ayaa magaalada Muqdisho maanta ka daahfurkay shirka wada tashiga hay'adaha federaalka ee istaraatiijiyadda maalgashiga qaranka. Haajir Cabdiqaadir Nuur ayaa warkaasi nooga soo diray magaalada Muqdisho. daafurka shirka hay'adaha federaalka ee istaraatiijiyadda maalgashiga qaranka waxaa loo arrinsaday muhiimadda dalka uu u leeyahay iibka qaranka si dhaqaalaha iyo wax soo saarka dalka uu u kobco. wasaaradda qorsheynta ayaa wado qorsho ay wasaaradaha iyo aqoon-yahanada u aruurinayso xog ku saabsan muhiimadda dalka u leeyahay iibka qaranka. waxaa ka qayb galay madaxda wasaaradda qorsheynta, agaasimayaal ka socda wasaaradaha xanaanada xoolaha, beeraha, kalluumeysiga, tamarta, maaliyadda iyo boostada iyo isgaarsiinta. ka hor inta aysan ka qaybgalayaasha aysan soo gudbin talooyinkooda, waxaa sharaxaad kooban ka bixiyay istaraatiijiyadda maalgashiga qaranka agaasimaha xafiiska dhiirigelinta maalgashiga wasaaradda qorsheynta Xasan Faarax. baahida sameynta istaraatiijiyadda maalgashiga qaranka waxa ay ka soo baxday nidaamka number 1 waxa ahaa markii hore waxaan dhihi jirnay HRP oo badanaa waxaa noo soo gudbin jiray ama humanitarian response planka waxa loo yaqaano UN-ta iyo hay'adaha kale ay inta iska samaystaan qorshahaas baa lagu dabaqi jiray Soomaaliya caawimaad in la siiyo. istaraatiijiyadu sidoo kale waxaa saldhig u ah fulinta wada tashiyo baahsan oo ka bilowmayo kan aynu maanta u fadhino. doodo adag inaynu ka galno iska xabiilna aan dhamaanteen furno si aqoon isweydaarsi aan uga sameeyno ninka qof kasta oo xog haya, gabadh kasta oo xog haysa inay la wadaagto hay'adihii federaalka halkan ku fadhina marna. inta uu kulanka socday ka qaybgalayaasha ayaa talooyin ka dhiibtay istaraatiijiyadan iyo sida lagu hirgelin karo. selectionka steering committee naftiisa wuxuu u baahan yahay kii hore in la fiiriyo oo dawladdu ay jirtay lagu base gareeyo the role of the steering committee member muxuu ka qaadanayaa maartay roolkiisa badanaa wasaaradaha muhiimka ah ayaa ahaan jiray. istaraatiijiga la sheegay waxa wadanka burburo waay basic needskiisa oo dhan way ayaa maqan in la soo nooleeyo dadkii faqriga laga soo saaro, shaqo loo abuuro, waxbarashadii, caafimaadkii, infrastructure wax la soo dhiso. waxyaabahaas focuska la saaray ay u baahan tahay lacagta cusub in lagu maalgeliyo. ugu dambeyntii shirka waxaa soo gunaaniday kusimaha xogayaha guud ee wasaaradda qorsheynta xiriirka caalamiga ee Soomaaliya Asad Yuusuf Qanyare. markii la dhaho maalgashi marka waxaan ka wadno ama meeshaan u jeedno goolka ugu dambeeya wuxuu yahay inaan wadankan dhaqaalihiisa kor u qaadno. dhaqaalaha inaan kor u qaadnane goolkiisa oo ku sii xiga waxa waaye ama hadafka laga leeyahay waa shaqo abuur. sidaad u ogtihiin waxaan ku mashquulsannahay arinta oo qorshaha horumarinta qaranka 9aad oo runtii arrimaha maalgashiga ama dhiirigelinta maalgashiga ay u tahay yani gundhig aad u weyn oo sal u yahay. waayo mar walba waxaan ognahay dii dhaqaale kor loo qaaday ama dhaqaale laga hadlayo waxa waaye wuxuu ka kooban yahay GDP wax la yiraahdo lagu fiiriyo adduunka. Haajir Cabdiqaadir, RTN TV, Muqdisho.